قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميعاد، يا رب نصوموا سوا يا رب العباد. عجل عجل يا رمضان، أنا نفسي محتاجة حنان، أبكي في ليلك وانهل خيرك، خذني في حضنك يا رمضان. بقدوموا أهنيكم انتو أهاليكم، ربي يبلغكم، ربي بلغنا رمضان. قرب رمضان واحنا سوا وفي نفس الميعاد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. meel kastoo dunida ka joogtaan aad baan idin salaamayaa. intuu warkaygu gaadho kelimadaydu baaraka allahu fiikum. waxaynu ku jiraa ayaamo fadli iyo qiimo badan. bishii ramadaan baynu bartamaha kaga jiraa. nabiguna sala allahu calayhi waaalihi wasalama fadaa'il aada u badan buu ku sheegay bisha ramadaan. bishu tobankii dhexe ayaa lagu jiraa. waxaynu u baahannahay qof kastoo muslima rabbi subxaanahu watacaala bishan soo haleeshiiyey oo soo gaadhsiiyey inuu ka faa'iideysto khayraadkeeda, uu ku dadaalo sida qiraa'at alqur'aan, qur-aanka uu akhriyo, sida badinta adkaarta oo uu badiyo astaqfiru allah, subxaana allah, alxamdu lilah, walaa ilaaha ila allah, wallahu akbar, walilaahi alxamd, iyo adkaarta soo aroortay qofku inuu badiyo. waxyaalaha qofka muslimka looga baahan yahay ka mid tahay bisha ramadaan. sidoo kale inuu haysto afkiisa iyo carabkiisa oo uu ka haysto wax kasta oo soomkiisa wuxu dhibi karaya. waxaynu u baahannahay sidoo kale badinta ducooyinka oo la badiyay, khaasatan ducooyinka waaridka ah ee nabiga sal alla alay wasalam ka yimid ama qur-aankaba ku yimid. muxuu ahaa qur-aanka waxaa ku yimid adciyo iyo ducooyin aada u fara badan oo ambiyada alla subxaanahu watacaala ay ku ducaysteen. mathalan qof kasta oo xaajo doonaya oo raba dhibaato ka sheeganaya, dhibaatada uu sheeganayo waxa uu ka helahayaa kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala ambiyadii oo ku ducaystay, ama ducuu qur-aanka ka dhexelaya, ama nabiga sal alla alay wasalam ducooyinkiisa ayuu ka dhexelaya. sidaa darteed baan takalluf iyo qofku inuu ducooyin kale oo jeebka ah uu iska raadsado aynan maaragtay macno weyn u sameyneynin. ducooyinka wuxuu qofku ka dhexeli karaa qur-aanka iyo sunnada nabiga sala allahu alay wasalama iyadoo saxiixa. ducooyinka ugu qiimaha badan waxaa ka mid a mathalan maanta xilliga aynu ku jiro oo xilli maantii xanuun badan oo dadku ay ka cabanayaan culaysyo xagga maaragtay caafimaadka la xiriira. qofka doonaya rabbi subxaanahu watacaala caafimaad ka doonaya, xanuunsan oo jiran, ducadii nabiyullaahi ayuub calayhi salaam ayuu ku ducaysanaya, rabbi inii masaniya duru wa anta arxamu araaximiin. ilaahayow dhib iyo imtixaan baa itaabtay, waan xanuunsanaya rabbi subxaanahu watacaala, ilaahayow dhibka iga dulqaad, rabbi inii masaniya duru wa anta arxamu araaximiin. ilaahay tabaaraka watacaala nabiyullaahi ayuub wuxuu sheegay ducada marka uu ku ducaystay, fastajabnaa lahu biilaahi subxaanahu watacaala fakashafnaa maa bihi min dur, waanu ajiibnay wixii markaa dhib ahaa ee haystayna waanu ka faydnay bi rabbi tabaaraka watacaala. sidoo kale qofka makri lagu sameeyey ama la dhakray ama maaragtay sixir iyo wixii lamid ah iyo kayd adugu loo sameeyey, shirqoolla loo dhigay, ama sixir ha ahaato loo dhigay, ama gaalo qof muslimahoo gaalo dhexeed ku dhex nool ha ahaado, qof awlaadiisa u baqay ha ahaado, qof makri iyo kayd meesha doontaba ha ka timaade ee loo dhigay oo cabsi ka baqahaya, ha ku ducaysto, ha yiraahdo wa ufawidu amrii ila allah. in marka uu ducaysanayo uu yiraahdo allahuma inii ufawidu amrii ilayk wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad. qofka yiraahda wa ufawidu amrii ila allah ina allaha basiirun bilcibaad oo ducada ku ducaysta ama maaragtay ilaahay u bandhigta arrimihiisa, wa ufawidu amrii ila allah, ilaahay u daayo u bandhiga ilaahi subxaanahu watacaala,
rabbi tabaaraka wa tacaala waa ka faydayaa. ilaah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ayadda muxuu ah ku xigta وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. wax allaale iyo wixii makri iyo kayd iyo shirqoole lagu maleegahay rabbi subxaana wa tacaala waa kaa kaafinayaa. ilaahay baa kaa ilan subxaana wa tacaala. qofku hadduu cabsanayo oo cabsi ku jirto sidoo kale oo dareen cabsiyeed uu qaado waxaa ku filan inuu yidhaahdo xasbiya allahu wa nicma alwakiil. nabiyullaahi muxamed calayhi salaam baa yidhi marka lagu yidhaahday aladiina qaala lahum annaasu ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum, gaaladii waa isku timaaday oo idinkay idan rabtaa inay idan gumaado ee cabsada marka lagu yidhi wuxuu yidhaahday xasbuna allahu wa nicma alwakiil. ilaahay baa nugu filan, ilaahay baanu tala saaranay. rabbi tabaaraka wa tacaala marka wuxuu yidhahday fanqalabuu binicmati min allah wa fadlin lam yamsashum suu. wax dhiboo taabtay ma jiro, fadli ilaahay bay la laabteen muslimiintii. ilaahna subxaana wa tacaala wax dhibaata a dushooda ma marin ma saarin weeye oo way badbaadeen. fanqalabuu binicmati min allahi lam yamsashum suu. wax xumaana dushooda ma taabanin. marka inuu yihahdo qofku xasbiya allahu wa nicma alwakiil marka uu cabsi dareemo meelun cabsi kasoo waajahdo ducadaasaa ku ducaysto. nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam baa ugu horreeyey oo ducadaa ku ducaystay markii dabka lagu tuuray yidhi xasbiya allahu wa nicma alwakiil. ilaahay baa igu filan, ilaahay baana tala saartay. ilaahna subxaana wa tacaala aayaddii wuxuu ku tilmaamay inuu ilaahay subxaana wa tacaala naartii ku yidhi qulna ya naaru kunii bardan wa salaaman cala ibraahim. qofka doonaya maalan awlaad raba oo awlaadu maaragtay aan dhalin ilaahi subxaana wa tacaala inuu ku baryo ducadii nabiyullaahi zakariya calayhi salaam uu yidhaahday rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarithiin. ilaahayow maaragtay fardi iyo kelinimo haygaga tegin rabbi subxaana wa tacala ilahu haygaga tegin. ducadaasuu ku ducaystay nabiyullaahi zakariya calayhi salaam. rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku irsaaqay yaxya, nabiyullaahi yaxya calayhi salaam ayuu ilaahi subxaana wa tacaala ku irsaaqay. marka qofka awlaad doonaya ducadaasi ha ku ducaysto rabbi laa tadarnii fardan wa anta khayru lwaarithiin. qofka awlaadiisa sidoo kale u baqahaya cabsi ilaahay awlaad siiyey oo awlaadiisa u baqahaya oo dhibaatooyin oga baqahaya oo cibaadaadkii ay ku liitaan, mathalan khayraadkii ay ku liitaan, karila caasinimadu muxuu ahay ku badan tahay, salaadihii iyo khayra ka tegaya ha yiraahdo nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ducadii ugu duceeyey wiilashiisa ugu duceeyey oo ah inuu mathalan ku ducaysto oo yiraahdo rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min dhurriyatii. ilaahu aniga awlaadeyda ka yeel kuwa salaada ooga. oo inaad awlaadaada ugu ducayso salaada ilaahi subxaana wa tacaala inuu u fuudeeyo. qofka haddii salaada uu baranayo ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar buu alla tabaaraka wa tacaala leeyahay. salaadu xumaanta iyo maaragtay fuxshiga ayay reebtaa oo qofku dabiicadiisay wax ka bedashaa markuu ehlu salaad noqdo. marka inuu ehlu salaad noqdo ugu ducee ducada nabiyullaahi ibraahimna ku ducee rabbi muxuu ahaa inaad tiraahdo rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min dhurriyatii. ilaahu waxaad iga yeeshay qof salaada ooga aniga iyo awlaadeydaba. ducadaa sujuudda ku ducayso ilaahi subxaana wa tacaala aada ugu bari. rabbi tabaaraka wa tacaala faraj buu kuu furayaa. qofkii ay ku timaado muruga ku timaado muruga ducadii nabiyullaahi dhunnuun calayhi salaam uu ku ducaystay markii badda lagu tuuray ee xuudku uu laqay ee halkaas xuudka dhexdiisa uu ka qeeliyey ducadii uu ku ducaystay ku ducayso rabbi tabaaraka wa tacaala uu tilmaamay inuu yidhi nabiyullaahi yunus dhunnuun inuu yidhi laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin. markii uu qoomkiisii ka tegay oo cadhooday ducadaasuu ku ducaystay ee uu xaaladda adag la kulmay laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin. ilaahu adaa xumaan ka nasahan waxaana kamid ahaa kuwa dulmiga falay ee daalimiintan kamid ahaa. ilaahi tabaaraka wa tacala fastajabnaa lahu ilaahi subxaana wa tacaala waanu ajiibnay wanajaynaahu min algami. murugadii iyo wixii hayeyna waanu ka faydnay. sidaa darteed qofku adciyada xaalad kasta oo dareenkeeda uu qaato oo soo waajahda noloshiisa ku timaaday ducooyin buu qur-aanka ka dhexelaya. qofku hadduu nafsadiisa dulmiyo oo uu maaragtay dembi galo wuxuu oranayaa ducadii nabiyullaahi aadam calayhi salaam uu ku ducaystay
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر مثلا قفك هدو عبسنا يا ودي آخردي سوء بقايا دنبي بكل عي معصي كل عي مركا وحو الربا إنو كتوبات كينو ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهي سبحانه وتعالى مركا واكا أجيبيا توبدي سواكا أقبليا مركا عموما قودهان ducada bisha ramadaan aynu ku dadaalo aynu badinana ducada ambiyada rasuusha ilaahay ay ku ducaysteen xaalad kasta iyada ilaahay subxaanahu watacaala ku faydaya duco kastana waxaa gadaasheeda taalaaya markaad akhrisaay nabigu ducada uu ku ducaystay ilaahay inuu subxaanahu watacaala u fayday oo wixii uu ka ducaystay maaragtay ilaahay ka badbaadiyay sharki uu ka badbaadiyay saa darteed waxaan leeyahay guud ahaan walaalayaal rabbi subxaanahu watacaala aynu barino ducooyinkan aynu ku dadaalo اللهم تبارك وتعالى هنقد القاضي لباتوين كأي امتحانات كتشرة بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته